Qof kastoo imaqalaya oo bilaabay inuu isdhiibo, inuu rajo dhigo, inuu isku xidho silsiladda niyad jabka. Waxaad ku jirtaa waqti adag, laga yaabaa inaad la socoto, laga yaabaa inaad la jiifto. Maanta waxaad la kulantay guuldarradii ugu xumayd ee noloshaada. Waxaad qarka u saaran tahay waadi halis badan. Waad ogtahay sida ay tahay inaad ku jirto meel mugdi ah keligaa. Waad ogtahay sida aad u rabto inaad ka baxdo mugdiga. Waad ogtahay sida ay tahay markuu erey kaa soo bixi waayo, marka ay dadku kaa filayaan wax wanaagsan, laakiin aad noqoto qof la yimaado wax aan wanaagsanayn. Taasi waa daqiiqadda xulashada, waa daqiiqadda go'aanka. Jawaabtaadu maxay noqon doontaa? Ma sii fadhin doontaa, mise waad kici doontaa? Dhibaatadu waxay abuurtaa xilli hagaagsan. Waa tan sheegaysa waxa kaa soo baxaya iyo waxa aad tahay adigu. Marka noloshu ay ku riixdo, cadaadis badanna ay ku saarto, maxaa kaa dhab ah? Fiiri, waxaa jira dad jooga qolaalkooda isla waqtigan oo aad u baahan tahay inaad maqasho codadkooda. Waxaad u baahan tahay inaad codkaa ku hesho ruuxdaada. Sababta loo sugayo ma garanayo, laakiin qaar idinka mid ah hadda waxay ku jiraan waqti adag. Wax walba way dhici karaan. Waxaa laga yaabaa inaad ku fashilanto shay, laakiin waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo in aanay taasi noqon ugu dambeyntii waxqabadkaaga. Waxaa qayb ka mid ah safarkaaga. Guuldarradu waxay muhiim u tahay guushaada. Sideed ugu fikiri kartaa inaad noqoto guuleyste adigoon guuldarraysan? Weli qaarkiin waxay la dagaalamayaan guuldarro. Adiguna waad go'aansan kartaa adoo ka filaya wax wanaagsan. Maxaa yeelay waad guuleysatay micnaheedu ma aha inaad isku day kale aadan samayn karin. Dhab ahaantii guuldarradu waa shidaalka tamarta, waa shidaalka mustaqbalkaaga, waa habka aad ku korayso, waa hab kuu suuragelinaya horsocod. Waa inaad guuleysataa. Mugdi kasta oo jira habeenkii waxaa ka dambeeya maalin iftiin badan. Taasina waa sidoo kale. Waad iska dhex saari doontaa xaaladdaas. Waxaa laga yaabaa inaadan adiga xakamayn karin waxyaabaha qaar, laakiin waad